mahdi maxamed guuleed khadar iyo biixi iimaan cige ayaa noqday labada xildhibaan ee ugu horreeya ee ka mid noqonaya golaha shacabka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya waxaana maanta lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Labada kursi ee xubnahan ku soo kala baxeen ayaa kala ahaa 237 iyo hoob 239. loolanka adag labada kursi midna kama furnayn marka loo eego hab qaybsiga xagga siyaasadda oo horay dhinacyada aqalka sare ay saameyn ugu yeesheen. mahdi maxamed guuleed ayaa noqday mudane baarlamaan markii koowaad waa ninka ugu sarreeya kuraasta Somaliland malafkooda si weyn ayuu u maamuli doonaa kuraasta hare ee Somaliland waxaana la rumaysan yahay inuu yahay maskaxda dejisay shaxda kuraastaas. 4 sano ee la soo dhaafay ayuu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen iyo kusime ra'iisul wasaare oo loo magacaabay bishii July ee sanadkii 2020. mahdi muddo dheer ayuu ku soo jiray siyaasadda iyo shaqada dawladnimada dalka isagoo ka soo bilaabay Somaliland oo uu ka noqday madax sare gudiyada doorashooyinka ilaa iyo hay'adaha garsoorka. kursigan golaha shacabka ee uu mahdi ku fadhiistay waxa hore ugu fadhiyay Xuseen Carab Ciise oo ka mid ahaa madashii mucaaradka ee garabka Cabdi Xaashi ee ka soo jeeday Somaliland balse dhaawaca ugu weyn ee xagga siyaasadda ayaa soo gaaray Carab markii ay ugu dambeyn heshiiyeen labadii garab ee Cabdi Xaashi iyo mahdi maxamed guuleed. Carab Ciise ayaa rajadiisu ay sii saqiirtay markii doorashada aqalka sare loo doortay Abwaa Qorane oo ay qaraabo dhow yihiin Xuseen Carab taasoo soo dadajisay in Carab kursigan uusan helin mahdi guuleedna u abuurtay fursad uu maanta ku noqday mudane golaha baarlamaan. xildhibaan biixi iimaan cige waxaa loo doortay xubin golaha shacabka sanadkii 2016 waxa uu ahaa xogayaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaankii 10aad ee muddo xileedkiisu hadda dhamaaday. waxa uu kaalin hormuuda ka qaatay furdaaminta maxaabiis kala duwan oo ku xidhnaa dalal ku yaala meelo ka baxsan Soomaaliya. waxa uu kaloo ka shaqeeyay barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee UNDP oo xilal kala duwan ka soo qabtay waxaana uu maamulay mashaariic qayb ka noqday dibudhiska iyo nabadeynta. waa aqoon-yahan bartay cilmiga siyaasadda diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga. waxa uu shahaadada heerka labaad ee masterka ka haystaa jaamacadda Oxford oo ka mid ah jaamacadaha ugu horreeya ee adduunka. doorashada mahdi guuleed iyo biixi iimaan ayaa ka dhigan in shabakad adag oo saameyn ku yeelanaysa kuraasta Somaliland ay markii koowaad soo baxeen maamulayaan xubnaha kuraasta ugu badan iyadoo yoolku yahay helidda xubno isku duuban oo ka yimaada golaha shacabka ee kuraasta Somaliland hadhowna sii jaangoyn doonta masiirka siyaasadeed ee Soomaaliya. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa arrintan laba arrimood u kala tahay. Roble waa u guul siyaasadeed oo ah bilowga doorashada golaha shacabka oo marun la dhaqaajiyo. Farmaajana dhinaca kale waa inay u soo baxeen laba xubnood oo golaha shacabka oo ah labadii koowaad kana yimaada Somaliland sida ay taageerayaashiisu tabinayaan. soo bixitaanka mahdi guuleed iyo iimaan biixi waxa ay uga dhignaan doontaa doorashada guud ee Soomaaliya laba qodob oo waaweyn in la xaqiijiyo oo ku jiray heshiiskii 17 Sebtembar. waa tan koowaad ee ergada 101 waxa ay noqotay mid lagama maarmaan ah oo aan dhinacna loo dhaafi karin. arrinta labaad waa mid hoosta ka xariiqday in habraaci ay soo saareen madaxda dawlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhammaadkii bishii Agoosto uu noqday mid meel mar ah iyadoo Omaanka lagu hayo sida loo maamulay kuraastan gaar ahaan xagga ergada oo aan dood iyo buuq badan ka imaanin. dhacdo kale oo yana la sugayo bilowga toddobaadka soo socda waa in ay hirgasho labada maamul magaalo taas oo yana noqon doonta natiijo kale oo si weyn u go'aamin doonta nooca doorashada ee Soomaaliya. saddexdaas arrimoodba waxa ay noqon doonaan kuwo taariikhda gala maadaama doorashada dadka codaynaya hadda ay noqon doonaan kursi kasta 101 laba deegaan doorasho iyo habraaci ugu dambeeyay ee madaxda dawlad goboleedyada oo isna lagu shaqayn doono kaas oo ay cabasho ka keeneen odayaasha dhaqanka qaybo ka mid ah iyo madasha midowga musharaxiinta oo si weyn u saluugay dhammaan hanaanka loo maray. shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isberbaarka bajaajyada dawooyinka. Wuxuu faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.